magacyadii ها magacyadooda waa ku dul mari karaa tobankoodii kow culimada la dilay ninka koobaad lambarka koobaad Sheekh Ahmed Sheekh Maxamed labo Sheekh Ali Xasan Warsame saddex Sheekh Absiye Dehriye afar Sheekh Musa Yusuf shan Sheekh Ahmed Iman lix Sheekh Ali Jaamac Xirsi toddobo Sheekh Maxamed Saciid Xirsi sideed Sheekh Aadan Ali Xirsi sagaal Sheekh Saleebaan Jaamac Maxamed toban Sheekh Yaasiin Cilmi Cawil tobanka culumay ahaayeen maxamed waxa la isweydiin karaa maxaa kalifay in la toogto oo haddii laga hadlo arrintan ma jirin miya waddo kale oo arrintooda lagu xallin karay maya waxay culimadan ku soo aadeen waqti teriska military regime-ka ay u suurta gashay waxa afka qalaad lagu yiraahdo consolidation of power awoodii oo dhan oo gacmahooda soo galay oo wadankii oo dhan ay gacantooda si xoog leh u wada galay oo awoodii ay ballaariyeen Soomaaliya oo dhan gacantooda cala casha military regime-ka hogaamiyihiisa ay ku jirto marka xilli waxay ahayd military regime-ku dareemay challenge qalqal uu dareemay marka waxay lahaayeen see ku dhici kartaa in laga hor yimaado marka baqdin gelin shacbiga la sii baqdin gelinay ahayd say u arkayeen in la cabsi galiyo oo dadku ka cabsado cabsina ay ku noolaadaan yani xiriirka ka dhaxaynaya state and society relations yani qaranka iyo bulshada inuu ahaado mid cabsi ah ee uusan noqon mid wadajir oo la iskaashanayo horumarka la iskala wada socdo sida la darso dhanna maalintaas ay bilaabatay in la kala furto maalintaas ay bilaabatay wadanku inuu soo hoobto hoos u soo dhaco tobankii bisha hadii la soo saaray sharciga oo 23 la toogtay muddo 13 bari gudahooda ana ay tahay waxa sharciga la soo saaray oo dadkan la xiray oo la toogtay cadaalad nooca ay heleen cadaalad weyn ma helin waayo qareenka loo qabtay inuu daafacana wuxuu ahaa oo yaab lahaa sharci darrada meesha ka dhacday nin ka tirsan maxkamadda badbaadada judgekeedii mid kamid ah ayuu ahaa marka garsoor cadaaladeed ma helin waqtiguna si swift ah ayaa la isu dhaafiyay marka ma ahayn arin loogu talagalay in cadaalad laga fuliyo waxay ahayd arin loogu qorxiirayay cid kasta oo gadaal isaga dayi doonta inay military regime-ka hor imaado arrimaha dilka culimadana waxay ahaayeen arrimihii u cadeeyay dadka jabhadaha aasaasi doona inaan wadankan wada hadalna jirin negotiation kalena jirin is-afgaradna jirin wax wada hadalana dhici karin ee qori caaradiis ayaan wadankan ku haysanaynaa cidda noogu imaanaysa inay naga ridatana qori caaradiis ay naga qaadan kartaa qodbadihii loogu jeediyay dadka loogu jeedin jiray tan u cadeysay ahayd marka wax cadaalad oo meeshaas ka dhacay ma jirin way ugu dambeyn marka maxaa laga bartay qadiyada markay dhacday hadda 45 sano kadib maanta maxaad ku tilmaami lahayd wixii dhacay iyo wax laga bartay waxaa dhacay cuqubo weyn oo wadanka ka dhacay baaba iyo waxaa dhacay burbur dad badan oo daraasiyay Soomaaliya ay u saariyaan ay dib u celiyaan layntii la laayay ama gooricii culimada Soomaaliyeed dhigooda la daadiyay ummadda Soomaaliyeed dhibka ku dhacay ee la qaxday la balanbashay meel walba adduunka gashay ku rafaadsan tahay dal iyo dibadba wax u keenay inay tahay culimadoodii oo hortooda lagu laayay dhigooda lagu daadiyay si xaq darro ah oo ay ka aamuseen cid u soo banaan baxday ma jirto hadaa la socotaba waxa dhacday oo yaab leh oo dhacday in diyaarada la kiciya hataa isku dhaceen waa maqashada laba diyaaradood inay faneeneen oo dadka lagu sii cabsi gelinayay marka wax banaan baxa 10 qof oo Soomaaliyeed oo soo baxda oo dareenka dadka Soomaaliyeed afkooda ku hadla oo cabira oo yiraahdo ummadii cabsi la aamusan yihiin laakiin anaga cabireyno isbiimeynayna waa la waayay marka meel cara alla ka dhacday noqoto Soomaaliya marka wax 10 oo maanta aan ka baranana ma jiro maanta waxaad arkaysaaba kuwa sharciyeynayaba oo aad arkaysaa oo kule in la laayay ahayd la laayay